السلام عليكم أصحابي، maanta waxaan doonayaa in la qaybsado arrin yar waxayna ka shidan tahay qasaalada iyo dharmaydhista. Anigu alxamdulillah xaafadda kuma qorni dharmaydhis iyo dharwarid iyo dhalaalaabidba midna kuma qorni, laakiin waxaan doonayaa in la qaybsado arrin yar oo xaafadeena aad u caawisa maadaama aan badannahay Allahuma baarik. Xaafad kasta horta dadku way kala duwan yihiin, dad baa jira labis badan, xarago badan, dhowr shay maalintii gashanaya, dhowr dharkoodu aad markiiba wasaqda ku ridaya basketka. Dadna waxaa jirta wiigii hal mar, laba jeer, saddex jeer inay wax gashtaan. Markaasay nidaam iyo organize xaafaddu u noqoto, qof kastana dhar nadiif u hela oo qofkan kaliya dharka badan oo xaragada badan uun dharkiisa markasta loo maydhin. Waxaan sameynay saddex basket arkaysan halkan bahalada dharka lagu rido oo daboola qaarkood leeyihiin ayaan soo iibinay saddex mid hablaha, mid inamada, midna lamaanaha isjecel. maalin kasta markaa qof loo maydhaya, inamada maalin loo maydhaya, hablaha maalin loo maydhaya, islaantii odayga hal maalin maydhani. Arrintaas waxay ku fiican tahay kow horta qofkii dharkiisa nadiif oo hal mar wada helaya, sharabaad halkaa yaala iyo garan halkaa yaala ma ah wixii hal mar bay wada yaalaan meel. waxayna ku fiican tahay qof kasta dhan nadiif buu helaya, qofkan dharka badan isticmaalayo dharka wasakheynaya badan kaliya ma aha dharkiisa markasta in la maydhayo. Marka xaafadda sharcigeena ka jira maalmo noo gaaran maydhna iyo saacada noo gaaran way jirtaa, maalmo gaaran tuwaalada iyo go'yaasha sariiraha maydhna way jirtaa. idinku nidaamka ma haysatiin, maxaa idin caawiyaan la soo qaybsada insha Allah. Barakallahu fiikum for watching and insha Allah see you next time.